halku-dhegyada ogaal reediya ayaa waxaa ka mid ah runta sheeg xataa hadday dacar ka qaraadhahay. madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa booqasho qarsoodi ah oo aan horey loo shaacin ku tegay magaalada Laasqoray ee gobolka Sanaag. goobaha uu booqday ayaa la sheegay inay ka mid tahay dekedda iyo isbitaalka, waxaana markii dambe uu la hadlay dadweyne meel la isugu soo aruuriyey. madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisa ayaa saacada kadib dib uga laabtay magaalada, waxaana la ogeyn ujeeddada rasmiga ah ee uu socdaalkiisu salka ku hayo. waa markii ugu horreysay ee madaxweyne ka tirsan maamulka Somaliland uu booqasho ku taga magaalada Laasqoray. dowladda Puntland ayaan weli si rasmiya uga hadal safarkan qarsoodiga ah ee uu Siilaanyo ku soo galay magaalo xeebeedka Laasqoray ee ka tirsan deegaanada Puntland. marka laga reebo wasiirka warfaafinta ee Puntland iyo hadalkiisa caanka noqday ee ah intaan yaabnay baan argagaxnay, balse mas-uuliyiinta Puntland ayaa la filayaa inay jawaab adag ka bixiyaan safarkan. Puntland iyo Somaliland waxaa ka dhexeeya muran dhinaca dhulka ee gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. xukuumadda cusub ee Puntland ayaa dhowr jeer ku celcelisay inay dib u soo celin doonto dhulka ka maqan. haddaba doodeenna caawa ayaa waxay ku salaysan tahay sidee ayaad u aragtaan safarkii uu madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo uu ku tegay magaalada taariikhiga ah ee Laasqoray. halku-dhegyada ogaal reediya ayaa waxaa ka mid ah runta sheeg xataa hadday dacar ka qaraadhahay. dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa, fadlan magacaaga sheeg. sidee ayaad u aragtaa safarkii uu ku tegay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo Laasqoray ee xiisadda badan dhaliyey؟ حسنا مغعي على عبد الرزاق محمد عمر وأنا جميع جالية بنسوده. حتى حسنا هذا ما سنتاي أردت أريد ما في أنا سو أنا راجع أولاد أنا يبيال قدر أريد من سودا إلى ما توقعين ما كتحينه أقصد على بكار لا يا وقت سفر كوني بنيك يعني سيراي Laasqoray Laasqoray وحورنا الله نيك سيراي طريقة مع سيرك شادين مع ومدة وقوي وكادية وكادية وسريوي. مركز كانت وحن طبعا هو ضيع بدن وكيمي بكر البلدان. بصير كي واحد يسمي أنا كيس واحد يسمي بصير كي واحد يجي وأرجع لو أرجع خير. مركز أرجع معنا غير هذا النهينه دوري أنا والله نتابع فيه. أنا أول شيء تاني إذا كان مرشد لك الظاهر بالتي إلى حتى الحصيل أو الأرمار فيه. تاني إذا كنت بدأ بالتي. بس أنا بحاول الله وماذا نحن ماذا نيجي أمانتي ونيجي الحديث نقدر حنتبهنا نيجي أيدي بير وخلاصه أدي أفيان الجينا اللي شافيان وين يعني أذكره أكثر من قصة كذا تلاقي وحاطين الجريه والمحاض ممكن المحاض وجو حدوتي بكرنا كذا تلاقي دفاعنا جواب كتير مكيه لكن هو أرجع حني ما عمل لغة ما أصلا أنا مرينا يا عيال كذا حسنا ما مش وأرجع الشمال نجينا بسرعة فاول ولا كسل هذا واحد جواب ولا أنا كموجينك أصلا ما محمد أنا كم قاعد كرما العوينا بولان يلعبون على الجار شرفت بدن وكنا نرتي لا سعانون إلى فاتح الوحشن الوحش يصور عارض سنة كثيرين أمريكا من العوينا ولا صدم كي على وجه الله حدوده في حرقامه في نص حنا لا سعانون أنا بخلي وقت جواب كده يكون مقر حسين شخصيا مكان كامله وقولي يعني مثل أنا سعانون يسوي أو باهي حرمت بن عارفين مركز Laasqoray haddii la soo weeraro waxay la mid tahay buurla oo dhan baan soo weeraray
dagaalkaas waa gelaynaa shacab ahaan iyo dowlad ahaanba marna raalli kama noqon karno hadday dowladdeena ka aamusay annagu haddaan shacabna kama aamusnayn marka mar hadduu madaxweynihii puntland uu yidhi laasqoray iyo sanaag waxay u baahan tahay arrimo bini-aadninimo madaxweyne axmed maxamed siilaanyana uu asagu tegey oo uu ballan qaaday arrimihii bini-aadnimada ah maxaa ku jaban xasano horta intaas shiraay bashituula uu ku yimi haye madaxweynaha tuu ku yimid waa laga fiican yahay gartay soomaalida hataa aniga ku dhinto waa loo dhuntaa anaga jawaabtaas waxaa heli lahayd markii cabdulla ergaano uu tago ama laasacaanad uu tago jawaab ku filan silaaya noqon lahayd laakiin midaan bini-aadamnimada silaaya anaga fadhiya hataa wasiir puntlandna ma tegin armiga hataa wasiir uu tago madaxu meesha dagaalqaada badda lagu rido oo la yidhahdo dadka dalka anaga difaacanayna si tuugaa iyo gardaraan lagu yidhi laakiin arrimo bini-aadamnimo u baahan yihin silaayana bini-aadamnimo meesha u yimi taas anaga kuma qanacsin haddaan shacabka puntland taliishaana waxaa iskale dowladda maaha mid madaxweynuhu leeyahay dowladoo dhan baa iskale shacabku ma laha dowladda maamulka baa iskale kaasaanu markaan leenahay galaal ciidna aad baan u taaniideynaya xildhibaanada ka hadla ummadoo dhan inay kala sharxan way u leeyihiin sababta dhulkoodii baa maanta weerar u yahay annagu burcaya geesi weerar kuma nihin marka dadku dad ahaan iyo shacab ahaan iyo dowlad ahaan intaba isu difaaco annaga laftigeena maanta north america joogna baa diyaar u ah inaan dalkeena ku dhimanno waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa sidee ayaad u aragtaa safarkii uu ku tegay madaxweyne siilaanya laasqoray bismillahi raxmaani raxiim acuudu billahi min ashaytaan rajiim xasan anigoo ah cabdishiix xasan xilsi ah oo ku magac dheer bakin waa ku salaamay adiga iyo raadiyo ogaal iyo dhegaystayaasha raadiyo ogaal salaan baa hawadan ii marinaya salaanta ka bacdi xasan su-aasha ay weydiisay waa su-aal meesha ku jiro miidiyaha iyo caalamka intiisa kalena laga wada hadlayay macnaha waxa weeye arrintii siilaanya uu ku tegey arrin fiican oo ummadaas deegaankaas deganeed isku keeni karta dib iyo rabsho ayay ahayd madaxweynayaashii ka horeeya allaha naxariistay gahaygaal macnaha raggii kale oo ku xigay midna ma tegin intaasna waxay ilaalinayeen xuduudada iyo nabadda iyo deegaan wanaag marka runtii arrintaas waxaan aragtideeda la tahay siilaanya inuu ku khaldanaa meeshaasna aan loo baahnay ummadaas dariska ah walaalaha ah deegaanka iyo nabadda ka dhexayso in maanta buuq la dhex dhigo waa arrin aad looga xumaado waana arrin ummadda dhan hadday ka hadlayso sida uu sheegayba ninka xisbiga cuud cali waraabe uu sheegay inay arrintaas ahayd arrin macnaha dumaalaasiya marka runta madaxweynaha subaxdiisa uma fiicna shicibka somaliland uma fiicna marka arrintaas waxaan runtii u aragnaa arrin aanu fiicnayn waxaana jeclan lahaa inuu madaxweyne siilaanyo arrintaa ka waantoomo oo ummadaas iyo deegaankaas dadkaas wada dhashay walaalaha in maanta dhexdooda buuq la dhigo inay aada u xun tahay marka runtii arrin aan u arrin arrin saxa ma ahan xasan oo wadda su-aashaas waxay iga weydiisay waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg iyo waddankaad ka soo hadlaysa sidee ayaad u aragtaa imaanshihii uu madaxweynaha somalilan uu ku yimid laasqoray runtii anigu waxaan ka soo hadlayaa magaalada puntland magaceygana waa cabdullaahi nuur arrintaasayta haddaan ka hadlo anigu arrin khalad ay ila muuqataa sababtoo ah dadka degaanka degan waxa weeye waa dad reer puntland arrintaas iyaga naftigooda raalli kama ahayn ninka siduu ku yimidna si mataqaanaa dhumaaleysiya buu ku yimid wax mataqaanaa loo dulqaadan karana ma aha dowladda puntland waxaan oran lahayn arrintaasayto waa inay guntiga dhiisha iskaga dhigtaa oo arrintaasayta wax ka qabataa sinaba aan maaragtay dadka reer puntland meel kasta ay joogaan arrimahooda cadgudub kusoo sameeyo waa in mataqaanaa loo wada dhan yahay waxna laga qabtaa anigu fikradda aan ka qabataa weeye arrinta soomaaliya dhibkii ka dhacay dadku waxa weeye nin walba meeshii uu dadkiisu deganaa buu u qaxay nololna ka samaystay marka reer puntland waxa weeye dad isku tashtay oo noloshooda samaystay weeye somalilandna dee waxa weeye waa iska garan karnaa dadkan hadda meesha yimid reer mataqaanaa ama isku dada yihiin ama isku eela yihiin ma aha soomaaliya dee nin walba meesha isaga dhugu ama qabiil ahaan uu degan yahay halkaa inuu ku ekaado ayay ku habboon tahay silaaye iyo reerkiisa dee waa ognahay meesha dhulwa laasacaanay iyo maxaan ku idhaahaa dhulkan laasqoray waxay shaqo ku leeyihiinna ma aha taariikh ahaana dee waxa weeye haddii adduunka la fiiriyo waddankaas waxaa isticmaalsan jiray ingiriis taariikh haddii dib loogu noqdana dee waaba la ogaanayaa halka sida ay kala ahaan jireen taariikhiyan iyagii baana mataqaanaa wax lagu sanayn doonaa marka anigu fikradda aan qabo waa
والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg iyo wadanka aad ka soo hadlaysa sidee ayaad u aragtaa safarkii uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo uu ku tagay Laasqoray. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Wa Xasan Karate inta la shaqeyso waa salaamaya salaan kadib anoo Asreer Faarax Samatar waxaan aad iyo aad mucjiso u ah madaxweynahan nin isku sheegay maamulka Soomaaliland inuu Laasqoray uu masha ku tagay uu isceebeeyay ma garatay aan dadweynihii iyo wixii joogay midna aan ka warqabin marka sharaf dhac adduunka ka weyn ma jirto madaxweynadu masha meel ku yimid waxa waay Laasqoray waa Puntland waxa waay Puntland ay ka tirsan tahay haddana madaxweynaha u socda sida loogu soo dhaweynayo dadweynaha oo dhan baa marqaati ka noqon doona iyo sida uu asagu ku tagiyo foolxumada uu sameeyay Siilaanyo maamulka Hargeysa ninka sheegtay inuu xukumo marka waxaan leeyahay eetaas asaga kaliya ay qaas ku tahay nin weyn oo inta la eg SNM-na soo laayay dadkii oo magaalada u ahaa uu ku laayay markii hore oo caan ay tahay haddana madaxweynuhu uu ku noqday Soomaaliland علشان dadku soo laayay oo daaroodka ah haddana ayagii inuu u dhuunto in uu yiraahdo dhagax baan soo dhigay qofna iyo dawladii iyo dadweynaha midna aysan ka warqabin aad iyo aad baa maaragtay foolxumo weyn u tahay uu sameeyay waxa waay haddana waxaa tagaya madaxweyne gaas asagoo oo marqaati u noqonaya dadweynaha sida loogu soo dhaweeyo qabanqaabadiisana lagu jiro waa idin salaamaya حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg sidee ayaad u aragtaa safarkii uu ku tagay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo Laasqoray ee xiisada badan dhaliyay. magacayga marka wareysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Muuse la yiraahdaa waxaan ka soo hadlayaa Fort McMurray Alberta ee dalka Canada. marka fikradaan waan u arko waxaan u arkaa waa wax iska cad ma aha waxa maaragtay laalaab ku jira xasiloonanta dadka degan dhulkaas ee uu ka sameeyay ninkaas anigu waxaan u arkaa wax qalad ah inay tahay 100% una isagu bilaabay oo create gareeyay isagu oo nin weyn oo waxaan ma oran karo anigu waa nin weyn laakiin inuu isagu inta bilaabay duulitaan uu tegay dad iska nabada oo dhulkoodii jooga uu ku duulay baan u arkaa marka arrinkaana daaran anigu caqligayga loo dulqaadan kara ma waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg sidee ayaad u aragtaa safarkii uu ku yimid madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo magaalada Laasqoray ee Puntland. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مقعد وإسلام تبر بعد يقول أنا سانيجا. أنا صار لي درس كذا مقعد بيرت الفورمات. بعد صار لي هذا مفرق كذي تو إرادتي كل يوم الحين السيراج Laasqoray بدل إنه كوبا يدل كذا كوباي. وحويه وقاري وداداش يدل توه ويرانو هركا. تصار واحد يصور حب مع كفتر هذا خاصة كدرو. عليه قال عليه كوفسو. كلمة كلمة لكن حاسكم أنا وطالع جواداس وأنا كوفسي. لكن وقال ما حدا لكن حاسكم كم حلالو. كانوا ما شو ضلكم حلال صدقني تقولوا تبى حوينا. تقولوا تجدوا حلالين ما يسوق. فكأب سودو حمار كأنيقا قلق دجال أسود. شغال بأسنم أو مارس يصير يدك كوالو هربوا في شتى ونصور نورين يساو قبل لا وحكة سميسي. ويقول حوالها بالضبط على حوالها قضاء إن هذه المركة أي وحين كوسة يدخل كعك عباية ويقول حيدا كوسة عندنا حوالها بدون قديم مكان واحد مرة ثانية جدا مكان ده بدل اللي بحلو إنك تعرف تقدر كده تفعل هاد وأقرب حد وهجاج آذي آذا يضم مع صنطه. dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg iyo wadanka aad ka soo hadlayso sidee ayaad u aragtaa booqashadii
uu siilaanya ku tegay laasqoray waxaan joogaa magacayga Idris Xasan Jabaan baa la yidhaahdaa waxaan joogaa magaalada Fort McMurray la yidhaahdo Alberta Canada marka walaal waxa weeye siilaanyo imaatinka uu yimid laasqoray anugu siilaanyo eedayn maayo wax kaladana uma arko inuu yimaado waxa weeye xasano waxaa jirta arrin yar oo aan rabo inaan kuu sheego maanta waxa weeye arrintaasi in muxuu ahaa dadkan hadda Puntland sheegta ama aan ka soo jeedno waxa weeye dad xamar iyo Hargeysa laga soo cayriyay bay ahaayeen xamar iyo Hargeysa markii laga soo cayriyana meeshaanay dadku isugu wada yimaadeen markay isugu yimaadeen waxbay samaysteen anuu hadda uma arko Puntland production iyo khayraad iyo wax ay leedahay inay dibadda usoo dhoofiso ama wax la kala boobayo dad gooni oo ay qaataan uma arko waxaan u arkaa nin kasta oo reer Puntland ah inuu nabadgeliyo iyo hadduu xoogaa haysto uu shaqaysanayo uu ku nabadgalo xoogaagiisana uu ka shaqaysto sidaasaan waa ka fikradahan maamaa yar baan kuu sheegayaa cali duux ninkii la oran jiro gabyaaga ah hadda ka hor markuu imaanayay doolo nin dhulkiisa yimid buu ahaa marka wuxuu qaadan waayey nin kaleoo dhulkii u dhalan inuu ushiisii hashiisii usha kaga dhufto dadkii deegaanka ahaa waa kii gabay dheer u dhacay marka wuxuu qaadan waayey nin dhulkiisii joogo dhulkiisii wax lagu yeelahayo nin baa gabyaaga wuxuu yidhi hadda ka hor foosha dihashadeedaa la yidhi waa dad iyo naar dibna uguma laabtay dhahaan dumarku waa noow durbana way iloodaan wixii daal ka soo maray buu yidhi marka xasanow dadkii shalay laga soo cayriyey xamar iyo Hargeysa maanta hadday yidhaahdaan iyagii baan u kala yaacaynaa oo aadaynaa wallaahi anigu siilaanyo waxa eeda uu sameeyey uma jeedo waxaan aaminsanahay ninkii xamar aada iyo ninkii Hargeysa aada labadaba ee shalay dhibkay kala kulmeen hadday iloobeen siilaanyo eed male marka anigu waxaan oran lahaa dadka Puntland iyo kilalka shanaad meel kastaa ku adkirsadeen oo eegdeedaas jooga nabadgelyadoodana inay ilaashadaan shaqaystaanna wax kaleeto hadda wadankooda production fara badan ma jiro intaasna weeye noloshu dhulkan aan joogno waa ka shaqaysanaa marka xasanow anigu waxaan oran lahaa haddee siilaanyo waa yimid iskama imaan xamar ku hurdaayaa looma yeeran iyaga aaday marka anigu ma garanayo dadku waxay uga cararayaan dhulkooda haddaan maanta ku oran lahaa Puntland batrool baa laga helay ama macdan bay soo socdaa oo qolo gooni ah qaadata dadku hada xanaaqeen oo ha ka tageen laakiin anigu waxaan u arkaa Puntland maba tegin ba anigu Puntland waxaan u malaynayaa 1999 baan mar wareer habeen ahaan wareer u socdaan waxaan seexday kalkayo intii ka dambaysana ma tegin laakiin markaa dadka waraysto wixii xoogaa haysta 100,000 50,000 40,000 waa dadku waa shaqaystaan nabadgelyana waa ku haystaan marka waxaan oran lahaa dagaalna waxa weeye anigu hadda cidna kula talinmayo oran mayo Puntland iyo Somaliland ha dagaalameen laakiin dadka dhulka u dhashay hadday leeyihiin anagu meelalaan aadaynaa waa dhulkayga ma rabno hadda taas anigu ma fasiri karo waxaan xasano hadalkayga kusoo gabagabaynaya adoo raalliga ah ninka daaroodka ku adtirsada anugu qabyaalad igama aha laakiin ninka daaroodka ku adtirsada 3 madaxweynaad leedahay maanta madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha kilalka shanaad iyo madaxweynaha Jubbaland saddexdaas allaha kugu anfaco cid ka madaxweyne badan ma jirte siilaanyo dad buu madaxweyne u yahay xasan sheekh dad buu madaxweyne u yahay adigu laakiin saddexdaas ay ilaahay ku siiyey saddexdaa ku iimaanso waa salaamada xasan hadalka intaasan ku dhameeyey waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg iyo waddankaad ka soo hadlayso sidee ayaad u aragtaa booqashadii uu siilaanya ku tegay laasqoray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا حاجة وقال magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin Saalax Ducaale waxaan joogaa magaalada Minneapolis dalka Mareykanka haddii aan ka hadlo ra'yigayga sida uu arkaa ilaatinka Siilaanyo ee laasqoray waxaan u arkaa xadgudub uu ku soo xadgudbayo Soomaalimaanta waxay isku dishay qabiil waxa la isku dilay reer Soomaaliyana waxa weeye waa hal waxa la aaminsanyahay Soomaaliya inay hal tahay isla uu rabo inuu ummadda ku soo celiyo qabiil iyo waxay isku dishay 20 sano loo kala maqnaa marka waxaan u aragnaa inuu ku soo dulay reerhaan ku soo dulay oo reer ku soo dulay laakiin ma aaminsan wuxuu fugarta aaminsan yahay oo ah in Soomaaliya kala goodo in ay Soomaaliya maanta reer qabsado inta ma aaminsanin magaalada laasqorayna khalad buu ku yimi waxaanuna wadigeynaa inuu arrinta
وإسكا إيرانيو قبيلة ندد كمان تكون عندي يدقال سكيان وكذي waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay We're